intaas dabadeed waxaan kaga mahadcelinayaa maadaama aan ahay sanatar Soomaaliyeed si Soomaalinimo ah adinkoo Soomaali ah inaad Soomaalinimo ugu soo dhaweysaan oo caawa aan leeyahay reer hebel iyo gobol hebel baa soo dhaweeyay mar kale maxaa badan kaga hal arrin ugu taagneedo professorka weydiiyay oo uu yiri meediyaha in la xisaabtamo meediyaha hal mar kooba lama dhisina yiraahdaan odayaasha roodkayaal iga shaqayn jiray sharcigu waa soo socdaa hadda ogow wixii hiiraan ka dhacay kuwii noo soo gudbiyey isla halkaa ku fiirsan waa isla meediyihi lagama maaro wax xunna qof xunna dadka lagama waayo dadkuna sideedaba waxay isku raaci karaan dad wax ay qortaan oo ay dhigtaan oo qaanuuna u hoggaansama canshuurtana bixiya labadaas hadda ku dhisma haddii labadaas la waayo waxba ma hagaagayaan sida awgeed waxaan rajaynaynaa Soomaaliya sanadaha soo socda inay noqoto mid wixii ay qoratana aaminta oo raacda canshuurtana bixisa si dalkooda ay u dhistaan dalkan hadda aan joogno waxaan rabaa horta inka aan ku noqdo dowladdan Sweden inaan dad dowlad marka la yiraahdo xukunka markaas lama yiraahdo waa dadweynaha dowladda maqasha dadka reer Sweden waxaan qabaa inay idin soo dhaweeyeen idin sharfeen sida ugu fiican idin la dhaqmeen sababtoo waxaan joogaa bil iyo waliba 15 casho ugu yaraan ilmahayga jooga oo halkan Gothenburg degan 10 sano waxbay ku barteen qaarkood waa halkaan ninka ka muuqda u jeedaan halkaan uu soo kala asagoo yar weeyo meesha haddana waa nin mas'uul balogaada waxaa la yiri qofka bini'aadamka ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo Sweden waxaan ogahay dowladaha Soomaaliya caawiya haddaanay dalka labaad iyo dalka saddexaad kuma jiro Soomaaliya aad aragteen oo waxa laga soo maray aad aragteen wadamada canshuurta dadkooda ay ka aruuriyaan ku bixiya bal inay soo taagto ay kamid tahay Sweden waxaan rabaa marka inaad kula dhaqantaan dadka inaad isku diintiin qasab maaha waxa ay ku dhaqmaan waa inaad dhowrtaa waxa kale waa inaad dhowrtaa laakiin waxa idinka dhaxeeya waa dalkan haddaan dhowrin hadda ogaanka anigiina soo gala waa ogti waxaan rabaa inaan idinkala hadlo dalka doorasha ka socota codkiina inta halkaan fadhisa anoo kale iyo maahan kulli codaad leediin waa idin codi aniga xataa eber ma baasaboorka yar haysta Swedishka laakiin waa wax dooran kari codkiina ka faa'iideysta guryaha ku xiraanina hala gambanina wiilashaas iyo dadka aad garanaysaan oo asxaabta iyo xisbiyada aad aniga iga aqoon badan tihiin codkiina siiya oo hadduu idinku xumaado sanadka daba iska bedeli doontaa laakiin codkaaga la seex waa muhiim waxaan rabaa inaan idin sheego sanatar Soomaaliyeed baan ahay ka soo galay Galmudug hadda waxaan baarlamaanka golaha wasiirada hordhignay sanadka soo socda dowladda hadda soo socoto Galmudug oo soo socota inaan mar dambe 89 xildhibaan ka kooban yihiin xildhibaanada Galmudug in aanan dooran mar dambe xildhibaan dadka reer Galmudug ay doortaan xildhibaankooda iyo madaxweynahooda
waxaan marsiina golaha wasiirada haddana baarlamaanka hor yaallaa galmudug waxaana rajaynaynaa oo ilaahay idinka rajaynaya maalmaha soo socda halkaas inay lagu ansixiyo in sanadka waxaas taybkan ku xiga in dadka reer galmudug ay u dareeraan codkoodana ay wax ku doortaan dowladda soomaaliyeedna qorshaha koowaad ay ugu jirtaa sababto ay tahay 329 xildhibaan ka kooban 275 golaha shacabka la yiraahdo iyo 54 sanatar oo loogu talagalay sida sharcigu yahay waxa ay nimankaan soo sameeyaan haddii sidii la rabo aysan noqon in loo gudbiyo aqalka sare oo markaas diidaan waa taqaan aqal sare iyo aqal si u wada shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa waxyaalihii la soo maray annagu haddaan galmudug nahay waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo galabta dowladdii horena waa la shaqeynay mida dambana waa garab taagan sababto ay tahay waa ku daay hebel ka daadi waa ku daay waxaan u aragnaa hebel ka daadi kelmad dadka soomaaliyeed caqabad ku noqotay waa dhibaato ninku waxaa la doortaa 4 sano hadda xumaada sidaa iska xumeeyeen inta u kaadin sidoo 4tiisa sano la shaqaysid hadhow xagga isaga leed laakiin halka haddaad kula dhigto cuqdad iyo balaayo iyo aniga reer hebelaha waxna loo ogolayn waa dhibaato aanaan rabin annagayna dilatee carruurtana inay gaarto ma doonayno beedadaatay soomaalinimo waxaad ku weyday wallahi inaad qabiil ku keenin asla waxaan rabaa inaan idinku booriyo soomaalinimo inaad isugu xiraataan rajaa gashay aad iyo aad aan kuwa faraxsanahay reer maalmo soomaali isku duuban oo soomaalinimo ka muuqato baad iila eg tihiin waaba tihiin ilama ekida raalli ahaada waxaan rajaynayaa inaad sii wadaan oo mid macno la idiin noqoto waxaan rabnaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan ahaa muddo dheer dowladdaana kusoo dhex jiray dowladdii markay burburtay nin waxaan ahaa ka shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga oo warshadii tolmada xoogga dalka soomaaliyeed ka soo rawxay maalintii hadda waa soo mooday oo burburaa dhacay oo waa soo kacaa kufay oo maamulihii kastamta dekeda muqdisho waa soo hayo waa kasii gudbayo galmudugaan tagayo waxaa noqday wasiirkii maaliyadda ee galmudug waa kasii gudbayo halkaa dowladdii madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo madaxda ka ahaa markay dhamaatay 2 sano waxaa noqday wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya ku taqaan ragga inta ila midka og soomaaliya ma ku taqaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waa habeenka xamad jiri wasaarad waxaa la dhiibay habay yaraatee magac maahane hal xafiis aan lahayn wasaaradihii dhuusamareeb oo dowladdii maxamed siyaad bare allaha u naxariisto oo ka tegana xafiis damaba jirin wasaarad ku jirta meesha qorshaha ma ahayn ee wasaarad kasta oo dowladdaas ku jirta dhul ay ku lahayd xafiisay ku lahayd wasaarad dowladeed oo aan dhuusamareeb dhul ku lahayn ma jirto waa dowladdaana damaba jirin waa abuureen isbeddelka cimilada ma jiro waa fakeraysaa yeeshaa walbakaa warqad u qortay ilaa adduunka lagu soo kordhiyay wasaaradda isbeddelka iyo cimilada adduunka lagu soo kordhiyay hadda adduunka wuxuu ka shaqeeyaa cimilo iyo amni hadda ogtiya haddii kale walbaakii madaxweynihii dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaaliye xafiiska ugu tegay madaxweyne saanaa jirta wasaaraddan waana lagaba maarmaan dhulka soomaaliyeed oo aada maqasheen wuxuu la roob la-yahay 80% waa dhibaato loo geysanaya
roobkii xadidda waxaa ka da anaga iska xadnay geedihii jaray every warqada madaxweynahooda igu lifaaqay World Bank-kii dowladda hoosena warqada ugu qoray dhul banaanna waa la siiyey waxaa la halkaasaad ka dhaysan kartaa wasaaradda World Bank-kii warqada waa ii soo jawaabay ayaa kadib waxaa la yidhi baahidaada gabar waxaan isku dayay waxa ugu yar oo guri xafiisyaal lagu dhisi karo inaan World Bank u gudbiyo sababtoo inta haddaa idhaahdo dhacdhacyo uu sheegaya ninka odaga ahay haddaan ka dooro waxaan garanayaa inaysan garanayo aan ii sheego waa ina haddaan 85 kun u gudbiyey gebigeeda xafiis ku badan ka dhiga 85 kun waa liisu approve geli hadda maanta waxaa dhisan wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada xafiiskii wasiirka wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud intaasoo waaxyo shaqaduna waa socotaa waxaan rajeynaynaa weliba aan ku faraxsanahay dowladda tan hadda xasan sheekh wuxuu magacaabay wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada oo awal dowladda xataa kama jirin wasaaraddaasi waxay ahayd agaasi yaroo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha hadda wasiiraa loo sameeyey halka anoo joogaa la soo wacay warshadaa la isugu imana wasiir ku-xigeenkiiyaan diray mashaariicdii isbedelka cimilada looga hortegi lahay dhirta lagu abuuri lahay wax kasta lagu qaban lahay miiskay saaray qofka bini aadamka hadduu isku dayo dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax taro waxaan qabaa wax badan loo qaban karaa laakiin sida ninkii odagaha sheegay haddii la yidhaahdo wasaaraddaada dhacdhacba ka jira macno ma samayn karto ilaaha ka magayo dalkan hadda aan joogno oo iswedel wallaahi wax kale kuma dhisna canshuurta ku dhisay waa qiimeeyaa aniga waa socdaa aan idin sheego maalin dhaweyd waxaan dabcay odaygii yimidaan ahay nin saaxiibkeeya la hadlo waxaa hay meesha lacaga u baahana saaxiibow $1 kusoo dira xajeed gabadhaydi xaaskayga la hadlo waxaa ahayd ka waran akoonkaasoo kuma soo shubo mara idaayay tiri hadda waa canshuurta ملايين القادرة أنا ملايين القادرة والدبات وقادنا ومن ليس يا واحد قبل ليس يا بجر واحد حتى ضدك لقبل باديو أرمها نوع عاصرة وحبنا على القبرية المها وحال كلنا ولا على كل مياه ولا على كل مياه waxaan rabaa inaad ii sheego oo aan xamaasho soomaalinimo inaad kuu sheego Soomaaliya hadda waxaa dhibaatada ay ka jirta ay tahay nimanka shabaab la yiraahdo qabiil kama jiro waxaa yarka ahoo 4.5ka oo ina wasiirkaygii reebi xagee la geeyey meesha dhacdhacda ma la geeyey marka laga reebo dhibaato kama jirto gaariga inta laga qaato xamar baa waxaan ku tegi lahay hargeysa laakiin jidkaa waa fadhiya arrinta aan rabo maanta halkaan hortiina inaan ka codsado kuna baraarugtaan dara iyo tii ka horreysay 4-5 tuulo oo dhulka galmudug ka tirsan oo mid kasta matoor biyood iyo anteenadii hormood iyo taleefanadu iska daba dhacayeen aan hubo intiina inta laga soo wacay inaan lacag u dirteen taad uu shubto taleefanka uu soo dhaco caawa shaah ma cabi karaan anteenadiina waa qarxiyeen matoorkiina waa gubin ebel hal qof oo lacagta oo haysto caawa ku cashay karaa taa anagoo la yaaban bay hiiraan meel u jirta magaalada beledweyne haddaan qiyaaso 50 kilomitir waxaan dhamay baabuurtii awal dadku waa iska dhex mari jireen lacagay ka qaadan jireen waa la iska dhex maraya qofkii markaas aan ahayn qof la yaqaano dowladda ka tirsan dadkiiyo war hayn oo saf soo galay oo raba inay lacagtii goostaan iyo warqadihii ay iu samaysteen ay 7 gees kala mareen cunugaa laga dejin odayaa laga dejin gabaraa laga dejin
waxaa la arag oo la maqlo waa aragteen hilbahoodii iyo maryam lagu guray markaasaa la sooraya baabuurkana dabay qabadsiiyo taas waxaan dhihi karaa marka aniga waa dhammaadkoodii biidnillah karim haddaa aragtii wax noocaas u dhaqma awal dadkay dhex galaayeen siyaasaday ka shaqaynaayeen qofkii ay rabaanay la xiriiraayeen laakiin mar haddaa aragto si wuxuusnimaa wax ku shaqaynaya waqtigoodaa soo dhammaaday oo waxay arkaan in xaalku kuxiya waxaan idinka codsanayaa marka inaad dadkan ay dhibaatada u geysteen oon hubo intiinaan walaalkiin adeerkiin iyo abtigiin iyo wax lamida saaxiibada inay yihiin in loo gurmad la yaqaano dowladdana lagu taageero sidayna marka wax loogu qabana waa la hubaa dowladda hadda jirta waxay tiri waxay ku dartay qorshaha dagaalka marka waa la hubaa wax ay saa u yeelayaan waa diyaar garow ay dareemayaan dowladdana waxaan ka rajeynaynaa inaysan noqon mid dadkana ku dirta nimankaas waxna aan ka qaban rajo fiican aan ka qabaa biidnillahi kariim adina soo duceeye waxaan rabaa inaan idin sheego dalkanaga waxaad u soo joogay waa ogtihiin 9 madaxweyne burburkii kadib bal ogaada maalinba tallaabaa la qaadaa tii hore ka yar wanaagsan waad ogtihiin xildhibaanadii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka dhigay waagii hore 50 iyo 1 qof ay ahaayeen qofka waxa dooranaya hadda maxay ahaayeen 101 marka soo socdana waxaa la rabaa qof iyo cod adigu inaad doorataa halkaad ka guushaan oo dalkii tagtaa aad tirahdeen hebelana matala ciladu meeshay idinka hayso ma idiin sheegaa xildhibaan madaxweynihii beri madaxweynaha u noqon lahaa gurigiisa inta uu tawafiidkiile isii lacag beri aan ku doortay oo lacag la siinaayo iyo madaxweyne is doortay madaxweynena idiin noqon maaya xildhibaan idiin noqon maaya oo sababtu tahay kanana meesha uu lacagta ka soo celiyo u rabaa lacag yar maaha lacagta meesha ku baxaysa kanna meesha uu ku cuni lahaayuu rabaa oo dulmiga uu qaato oo ku cuni lahaa haddaan idin iraahdo aniga lacag ma qaada samaysaa waxaa isleedihiin xildhibaan lacag qaadanaa jira laakiin taariikhdaa dadka sheegaysa dhib ma jiro insha allahu tacaala aada iyo aada umahadsantihiin waxaan warkayga inta harta rabaa inaan ku dabamarsado haddii ay jiraan oo aan ku celiyo xiriiriyaha oo aan ku mahad celiyo asaga waa iska oga saaxiibkay wey ninka ma yara 30 sana tuuki aan ku celiyo cabdicuud haddii ay jiraan su-aalo macquul ah ayadoo wax kasta dharka aan laga qaadayo soomaali aan nahay aan wada joogno soo dhawo سيد سيادة الشروع